wuuna jabeer yahay balse xusuusnow inuu garoonka gudihiisa ka qabto shaqay adag tahay inuu qabto ciyaaryahan walba markii uu dhaqaaqana waa sidii libaaxi oo kale waa lama joojiyaan kani wuxuu yahay English Premier League Champions World Cup Champions kani ma jirto cid joojin karto beladii la guddoonsiinayay xidigaha xulka Faransa waxa asiga si qaas u guddoonsiyay madaxweynaha Faransa wuxuu qayb weyn ka ahaa guushii koobka adduunka ee xulka Faransa xitaa wuxuu ciyaarayaa isagoo xanuunsan sheekadan waa sheekay adag tahay inay u rumowdo xidig walba waa laacib qof walba u yaqaano ama uu la ciyaarayo kubad xushmad weyn u muujiya sidoo kale ah qof aan hadal badnayn amsnaantiisa heer waxay gaartay uu ciyaarnada xulkiisa weydiisan kari waayo koobka si uu sawir gooni ah ugu galo ilaa Stephen Azonzia uu ciyaarnada xulka Faransa uu arintan tusay xishoodkiisii marka laga tago waa ciyaaraan xitaa dhaqaajin karaya buuraha waa muslim aan ka tagin mar walba inuu akhriyo kelmadda Allah ee Quraanka Kariimka dhowr jeer ayuu tagay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama asagoo halkaasi ku soo gutay waajibaadka xajka iyo cimrada wuxuu tababarka caadiga ah qaadanayay asagoo sooman bishii barakeysan ee Ramadaan markaas xulka Faransa ay ku jireen diyaar garoogii ugu dambeeyay koobka adduunka wuxuu soo bandhigay xirfad qabad leh intuu socdo koobka adduunka wuxuu joojiyay kubada inaba aan caadi ahayn wuxuu horumar xooggan soo bandhigay kulamo waaweyn sida kulankii Argentina iyo Uruguay wuxuu joojiyay xidig ay adag tahay in la joojiyo ee Messi kulanka Argentina iyo Faransa wuxuu taasi ku muteestay amaan uu ka helay maamulka iyo shaqaalaha iyo ciyaarnada xulka Faransa waxaan loo qaaday hees lagu amaanayo markii uu soo biiro kubadda cagta wuxuu tababarka ku imaan jiray mooto isagoo xitaa soo caawin jiray dadkii kale ee ku soo arkay wadada kani waa laacib u qalmo inuu ku guuleysto abaalmarinta laacibka ugu fiican dunida waa laacib markasta xaalad kasta iyo meel walba aaminsan naftiisa waa laacib ugu dambeyntii u rumowday riyadiisa N'Golo Kante horay ayuu u dhaqaaqay